aga oo loo soo gaabiyey Akademiga Goboleedka af Soomaaliga waxaa markii ugu horreysay xarunteeda laga dhagax dhigay magaalada Muqdisho sanadkii 2015 xilligaas oo si wadajir ah ay u dhagax dhigeen madaxweynihii xilligaas ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle inkastoo aga ay ku sii shaqayn jirtay Jabuuti 6 sannadood kadib sanadka 2023 ayay labadii madaxweyne hore u dhagax dhigtay mar kale xariga ka jareen Akademiga Goboleedka af Soomaaliga aga haddaba waxa isweydiin mudan akademiyadan maxay tahay shaqadeedu goorma ayaa la aasaasay maxay ahayd baahidii keentay in la sameeyo aga Professor Cabdalla Cumar Mansuur oo kamid ahaa raggii ugu soo horreeyay akademiyadan ayaa ka sheekeynaya xilligii la aasaasay aga waxa ay ka shaqayso iyo baahidii keentayba Akademiga Goboleedka aga sida cinwaanka laga dareemaya waxay tahay hawsheeda ugu muhiimsan daryeelka af Soomaaliga daryeelka iyo horumarinta mideynta habdhigaalka af Soomaaliga howlo badan oo ku saabsan af Soomaaliga iyo suugaantiisa ilaahay khayr ha siiyo maartay Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maartay nasoo wacay sanadkii markuu ahaa 2012 kole aniga igu horreysay markaas ay ahayd marka waxaa jiray waxa la yiraahdo Somali Pen oo lagu sameeyay ama qaranleyda Soomaaliya London lagu sameeyay ayaa Ismaaciil u yeeray in dalka Jabuuti ay soo degaan taas haddana laga sii ambaqaaday waxa la yiri aan sameeyno urur oo maaragtay aqoon-yahano ah oo af Soomaaliya daryeelkiisa iyo horumarintiisa iyo kobcintiisa ka fikira marka meeshaas ayaan shirweyn aan isugu nimid oo aan maaragtay laga doodayo af Soomaaliya wixii laga qaban karo marka halkaas la isku soo qaaday in la sameeyo ururkan aga sanadkii xigay 2013 ayaa maaragtay isku soo noqonay aqoon-yahanadii iyadoo la cazumay madaxweynayaasha geeska Afrika ay meesha ay isugu yimaadeen halkaasana maaragtay qalinka lagu duugay in la aasaaso ururka la yiraahdo Akademiga Goboleedka af Soomaaliga oo aan loola lahayn gobolada Soomaaliya ma ahee gobolka Afrika geeska Afrika shanta Soomaaliya waagii hore la dhihi jiray ha ahaatee dad maaragtay matalaya aqoon-yahano matalaya ayaa markii isu yimaadeen si oo mutadawacnimada aan maaragtay halkaas aan u shaqeynayni markii la gaaray 2015 ayaa maxaan ku yiraahdaa lagu soo wareejiyay ilaan awal hoygeenu wuxuu ahaa Jabuuti oo ahaa waxaana lagu soo wareejiyay halkaan xamar halkaasoo laba madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh ay markaas kulmeen meesha maanta aan joogna ayayna dhagax dhigeen sanadkaas 2015 kadib markii halkaan loo soo wareejiyay tiina markay muddo qaadatay dhismaheeda waxaana gurigan sidaa u weyn oo quruxda leh maalgeliyey maxaan ku yiraahdaa Jabuuti ayaa maalgelisay waxaana qalabeeyay dowladda Soomaaliyeed sidaasaana maaragtay aan noqonay garab ratanimadii ka baxnay oo aan hoy yeelanay meel degnay 5 qaybood ayaa aga maaragtay ay xoog saaraysa xagga cilmi baarista 1 naxwaha horumarintiisa 2 qaamuusaynta inta la sameeyo la sii kobciyo 3 erebixinadii in la mideeyo la sii kobciyo 4 in la sameeyo nidaam tarjuma Soomaali iyo af shisheeysi wax lagu tarjumi lahaa 5 suugaanta Soomaaliyeed la cilmiyeeyo la keeno iyadana maaragtay la aruuriyo shantaas ayaa noo maaragtay qorshaysan
حاجه باهين كواحد شقوي كسيده باهين حاجه baahinta hadda annaga wax oo noo qorshaysan ma ahe waxaa hadda noo daran midaan ma aragtay mideynta oo af soomaaliga oodasay u kala sarreysa loo kala qaadayo shantii aan sheegayno waxaa degdeg hadda ah baahida taalla waxaa waaye in la wacyigeliyo dadka qiimaha af soomaaliga uu leeyahay adeegsigiisii iyo sixitaankiisii turxan bixintiisii mideyntiisii tana hadda waxyaabaha aan u baahannahay maaragtay baahintoodii kuwan kale cilmiga kale ah iyagana waan u baahannahay laakiin kuwana hadda noogu sii daran annaga waxaa noo gaar ah xagga afka akademiyada fanka iyo suugaanta taas iyadaa maaragtay wixii kaloo zaa'id ah dhaqan zaa'idka ha ahaado taariikh ha ahaato walow annaga xataa maaragtay wixii taariikh iyo af isku wixii af la xiriira dhaqan iyo af la xiriira dhan waan maaragtay soo dhaweynaynaa waanu ku dadaalaynaa insha allah inaan baahino inkastoo Professor Cabdalla uu ka sheekeeyay dadaalkooda ku dhisnaa isxilqaanka ee shakhsiyadeed haddana waxa uu tilmaamay inaan laga maarmin gacan dawladeed si loo meelmariyo dadaalkooda ku aadan horumarinta af Soomaaliga iyo adeegsigiisa waxna hawlo markii lagu dhaqaaqay waxaa roon meel in laga bilaabo amay tahay aan niri goobta tan in laga bilaabo annagoo wacyigelinayna dadweynaha ugu horreynna maaragtay dowladdii aan ka dhaadhicinayno inaan hiil iyo hoo aan ugu baahannahay dowladda soomaaliyeed ma ahayd dowladaha ka qaybgalay hiil iyo hoo ayaa loo baahan yahay lagu dhaqaajiyo barnaamijkaas ah in af soomaaliga hirgelintiisi dib u hirgelinta adeegsiga af soomaaliga kow iyo mideynta habdhigaalka af soomaaliga oo nin walowba si iyo wax u qoraa in la mideeyo af walba markii la qoro waxaa roon in maaragtay wax midaysan walow lahjado meel walba ay ka jiraan laakiin waxaa la rabaa wax midaysan oo dadka u wada cuntama in maaragtay lagu sameeyo sidii waagii horeba 18kii sano ee kacaanka waxa waaye afkii keligiisa ayuu midaysanay idoon cidna la dhihin hala qaato qoladaas ama ah kana saas oo kale wax midaysan in la sameeyo in afkii lasii maaragtay horumariyo xagga erebixinta ha ahaato qaamuuseynta ha ahaato yacni dhinac walba in af soomaaliga laga horumariyo lana mideeyo inaan halka aan ka bilaabno ololihii maaragtay dib u adeegsiga af soomaaliga intaan wacyigelin karna walow aan jecelnahay dowladda inay gacan nagu siiso maaragtay laakiin annaga iskeeni inaan bilaabno oo aan samayno maxaan ku yidhaahdaa waxa la yidhaahdo tababara aan samayno si marka hore aan istusno sideen u midayn karnaa maxaanu ka midayn karnaa oo nin walba dhinaciisii aanan maaragtay cilmi baaristii aanan wadanino halkan inuu ay noqoto meeshii laga doodi lahaa lagu falanqeyn lahaa habkii maaragtay habdhigaalka midaysan taas ayaa hadda maaragtay qorshaheeda inoogu jira cid alle ciddii doonaysa insha allah ama hay-addii doonaysa in dadkeeda loo tababaro maaha af soomaaliya annaga ma barayna laakiin habdhigaal midaysan inaan maaragtay diyaar aan u nahay ayaan maaragtay ayaan gaarsiinaynaa cid kasta